maxaad kala socotaa daawadayaal gumaadka ay dowladda Hindiya ee uu hogaamiyay xisbiga xagjirka ah ee Hinduuska ahi ay ku hayso muslimiinta ku nool dalka Hindiya. dowladda ayaa hadda burburisay isla markaasina cagta marisay masaajid caan ahaa kaas oo muddo dheer ka jiray dalka Hindiya. dhawaana dad aad u tiro badan oo muslimiina ayaa iyagana laga barakiciyay goobihii ay deganaayeen iyadoo oo dhammaan xaafadihii ay deganaayeen laga dhigay ama lagu tilmaamay inuu yahay jid tareen taasoo wali la isku haysto. sidoo kale dhawaanahan haldoorka iyo aqoon-yahanada muslimiinta ee reer Hindiya waxay ku tilmaamayeen dowladdan inay tahay mid xasuuqaysa isla markaasina gumaadaysa muwaadiniinna aan u aqoonsanayn dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka Hindiya. Hindiya waxa ka taagan dibindaabiyooyin aanay dad badan u dhug yeelan oo lagu beegsanayo dadka muslimiinta laga tiro badan yahay ee ku dhaqan dalka Hindiya. muslimiinta ku nool dalka Hindiya waa 200 milyan oo qof. Hindiya waa dalka saddexaad ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan adduunka oo dhan, iyaga oo dalka Hindiya oo dadkiisu aad u badan yihiin ka ah 16% tirada guud ee dalka Hindiya. muslimiintaasi oo ku kala faleeqsan gobolada kala duwan ee dalka Hindiya isla markaasina aanay jirin gobol ay u badan yihiin marka laga reebo gobolka Jammu Kashmir oo isagu ah gobolka ay Pakistan iyo Hindiya ku muransan yihiin oo muslimiintu ay u badan yihiin. sidaynu soo sheegnay dalka Hindiya waa dal ay qarniyaal badan ka soo talinayeen boqortooyooyin kala duwan oo muslimiina iyada oo dhaxalka ugu badan ee dalka Hindiya iyo xadaaradda ay tahay mid ay muslimiinta ka dhaxleen. dhibaatooyinka iyo dibindaabooyinka hadda lagu hayo muslimiinta ayaa waxa ay intooda badan bilaabmeen 2011 9 sano ka hor markii uu xukunka la wareegay xisbiga xagjirka ah ee BJP ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha haatan xilka haya Narendra Modi oo isagu ah xisbi abuuray cimilada colaadda ah ee ka dhaxaysa dadka Hinduuga tirada badan iyo muslimiinta laga tiro badan yahay, kaas oo keenay jawi colaadeed isla markaasina abuuray kala sooc labadaasi bulsho ee kala haysta labada diimood. waxaa colaadda sii huriyay hadallada nacaybka ah ee ka imanaya mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga siyaasadeed ee BJP ee uu hogaamiyo Narendra Modi oo mar xilliyada ka mid ah ay haweeney ka tirsan oo xil sare haysa ay ku dhawaaqday in muslimiinta la gumaado. marar badan oo kale waxa ay faafiyaan hadallo iyo aragtiyo aanay laba gaban oo ay kaga soo horjeedaan muslimiinta. waxa faaftay ereyada ama adeegsiga ereyada nacaybka ah ee iyaga ama inaga. sidoo kale hadallada nacaybka ah kama imanayaan dhinaca siyaasiyiinta oo kaliya ee sidoo kale waxa ay ka imanayaan wadaadada Hinduuska ah oo iyaguna ku baaqaya in muslimiinta la dabar gooyo. xataa waxa ay gaadhay in fanaaniin ay ku soo heesaan ereyo nacayb ah iyo waliba in muslimiinta wax laga qabto. tallaabooyinka ugu darnaa ee ay qaaday xukuumadda BJP waxaa ka mid ahayd inay laashay xukun hoosaadkii gobolka Jammu Kashmir ee dalka Hindiya oo ay muslimiintu xukun hoosaad haysteen isla markaasina ay dowladda dhexe si toos ah ay u maamulayso xilligan. waxaa xaaladdu ay ka sii dartay dhawaanahan markii dowladdu ku dhawaaqday in la baabiyo xaafado dhan oo ay degan yihiin muslimiin isla markaasina la sheegay in halkaasi ay tahay jid tareen oo cusubna laga dhisi doono dowladuna ay hore u lahayd. waxaa ka dambeysay mar kale in la dumiyay masjid caan ah oo dhisnaa in ka badan 16 qarni kaasoo lagu magacaabi jiray Shahi Masjid. waxaa dhisay Sher Shah Suri oo ahaa aasaasihii boqortooyadii Suri ee iyaduna mar Hindiya qaybo ka mid ah ka talinaysay. hay'adda lagu magacaabo Genocide Watch ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso in waxa hadda ka socda dalka Hindiya uu yahay xasuuq iyadoo oo dowladda Hindiya ugu baaqday in wax laga qabto tallaabooyinka nacaybka ah. waxaa xusid mudan in muslimiinta Hindiya ku nool ay tiradoodu gaadhayso 200 milyan oo qof, taas oo ka mid ah dalalka muslimiinta ugu badan ee ay ku nool yihiin ama shanta dal ee muslimiinta ugu badan adduunka oo dhan ay ku nool yihiin. sida oo kale waxaa xusid mudan in muslimiintu ay dhulkaasi xukumi jireen muddo dheer. aataarta iyo waliba waxyaabaha qadiimiga ah iyo dhismayaasha waaweyn ee taariikhiga ah ee Hindiya loogu dalxiis tago waa kuwa ay dhiseen boqortooyooyinkii muslimka ahaa ee deegaanadaasi ka talinayay. muslimiintii sidaasi u taariikhda fogeyd xadaaradda Hindiyana doorka weyn ku lahaa ayaa haatan la rabaa in la xasuuqo ama meesha laga saaro.